xaflad lagu taageeraya musharaxa madaxtinimada gobolada dhexe ee Soomaaliya Ambassador Axmed Cabdisalaan ayaa lagu qabtay hoteelka caalamiga Embassy Suite ee ku yaala xaafadda Bloemfontein qayb kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxay taageero buuxda u fidiyeen musharaxa madaxtinimada gobolada dhexe ee Soomaaliya mudane Ambassador Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan inaan taageerno aan maxaa la jirno taageerada aan heli hool la garab taagnahay Ambassador Axmed Cabdisalaan oo ah musharax u tartamaya madaxtinimada Mudug iyo maxaa la Galgaduud إن شاء الله دير أنا عند جيران نعم سبحانه. كوجوليو أننا وان كوج تاجر أنا مجا عاد محل يرادا مسؤولية دا أدمانتا أقاضي إن أد محل يرادا قبل كمدوج يجل جدود إن أد مشرح أصول نقطه وان كوج تاجر. هو نين دلائل بدن عن برشلونة أنا واقعا جعلنا ومضي إن إسكو سودواته نين الصومالي إنه إسكو كنا جعل واي أحمد عبد السلام أخوانا نقول له هاي شنطة وحيال وحوي ودر النمو Soomaali nimo midnimo islaamnimo iyo hadii ilaahay idmahayo cadaalad waa shantaa waxyaalo haddaad ku shaqaynaysid oo Soomaaliyeed ugu shaqaynaysid oo gobolada dhexe ka yimaada inaan si wada jira u wada taageerno kii la soo doortana si wada jira aan u wada taageerno oo gobolada dhexe ka mid ah oo madaxtinimo doona intuu doonayo inaan taageero inta uu taariikhda iyo siyaasadda uu soo galay wax badan oo ummadda u qabtay waa nin siyaasadiisu dabacsan tahay waa nin sida hore loo sheegay runtii geesi ah waa nin mudan gobolada dhexe iyo wax ka weynba in loo magacaabo wadada nabadda ee Soomaaliya waxay martaa Mudug iyo Galgaduud Ambassador Axmed Cabdisalaan waa qafan jecelnahay weeye waxaan ku jecelnaana wax kale ma aha waa siyaasaddiisa ama ninka soo baxaba ama gabadhii soo baxdaba in aysan u kala harin oo deegaankaas dadka degan ay ka simaan oo si cadaalad loo kala qaybiyo xildhibaanada wasiirada oo maaragtay aan lagu salayn kaliya dadka maaragtay qabiilada waaweyn oo meesha nimanka u tartamay baaba waxay astaalaan in Soomaaliya gidigood madax u noqdaan oo go'aansaday inuu geedi socodka Soomaaliya wax loogu qabanayo oo lagu hogaamiyo oo qayb ka ahaado mar walba hatta hadii arintu ay tahay mid qaraar oo ku adag أحمد عبد السلام ونين كبيحي كرا اسكون حيرك كرا Soomaaliya أحمد عبد السلام مركان كسرته قبلة دحى وبريتشك اسكو حراي Soomaaliya ونبضي Soomaaliya أحمد عبد السلام وسياسي بريتشك Ambassador Axmed Cabdisalaan ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha uu qaban doono ay ka mid tahay horumar cadaalad iyo midnimo waxaa ku dhamaatay xafladii loogu talagalay taageerida musharaxa madaxtinimada gobolada dhexe Axmed Cabdisalaan Zakariya Aadan Universal TV North America